Qoraaga caanka ah ee reer Turki Ibrahim Karagul ayaa warbixin xiiso badan oo uu qoray waxa uu kaga hadlay halka caalamka hadda uu u socdo iyo qorshaha halista badan ee ay damacsan yihiin dowladaha Mareykanka iyo reer Yurub, isaga oo dhinaca kalena farta ku goday halis iyo dagaal kale oo loo qorsheynayo in la geliyo Turkiga. Qoraaga ayaa ku bilaabay qoraalkiisa sidan: go'doon dhaqaale, kacdoon siyaasadeed, go'doon ciidan, go'doon diblomaasiyadeed, go'doon dhaqan. Waa dhaqan waali ah. Waxaad moodaa in dunidu ay ku socoto waddo aan ka soo noqosho lahayn. Haa, waddanka Ukraine ayaa lagu duulay. Joogitaanka akhlaaq darrada ah ayaa u baahan in dunida ay ka dhidhiso duulaankani ayna joojiyaan dagaalka. Taasina waa wax fiican oo wanaagsan. Qoraaga oo soo xiganaya khabiir dhanka ciidamada ah waxa uu leeyahay, laakiin Ruushka iyo reer galbeedka labaduba waxay burburinayaan qarankani cabsidooda darteed. Dadka reer Ukraine waxa ay ku saxan yihiin dagaalka ay ku doonayaan in ay xukunka ku qabsadaan. Dagaalka hadda socda waxa ay u badan tahay in bariga Yurub oo dhan uu noqdo goob dagaal. Sidee xabad joojin ama nabad loo dhisi karaa haddii Ruushka uu go'doomiyo iyada oo lagu saleynayo walaacii Midowgii Sofiyeeti? Waxaa jira laba fursadood. Mid ka mid ah suurtagalnimada ayaa ah in Mareykanka iyo Yurub ay aaminsan yihiin in Ruushka uu sidoo kale kusoo duuli doono dalalka kale ee bariga Yurub, taas oo ka dhigaysa Yurub gabi ahaanteedba mid aan difaac lahayn. Sidaa awgeed waxay dalalka ku teedsan sohdinta bari ay u rogayaan difaac adag. Hubinta si ay u difaacaan Yurub, barwaaqada iyo raaxada Yurub. Ku wadida dhammaan wadamada ku teedsan qadka xuduudaha laga bilaabo Baltic ilaa gobolka Kerch waa qorshe Yurub iyo Ameerika oo weyn. Ruushka iyo reer galbeedka labaduba waxa ay khatar ku yihiin bariga Yurub. Wadamada sida Poland, Lithuania, Romania iyo Bulgaria waa inay aad u taxadiraan. Runtii Ruushka iyagu waa khatar. Si kastaba ha ahaatee, qorshaha qarsoon ee Mareykanka iyo Yurub ayaa keenaya khatartaasi ka weyn. Qoraaga Ibrahim Karagul waxa kale uu leeyahay, suurtagalnimada labaad ayaa ah in Mareykanka iyo Yurub ay wadaan qorshayaal ay Ruushka ugu wadaan Ukraine dagaal muddo dheer socda. Kadibna waxay ka faa'iideysan doonaan fursadahaasi si ay u qaybiyaan Ruushka mar labaad oo ay la wareegaan kheyraadkiisa faraha badan. Dagaalkani waa hubaal inuu socon doono kadib Ukraine. Waxay ku saabsan tahay ku xadgudubyada dhammaan kheyraadka ma aha oo keliya shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah. Ka fikir waxa gobolka Ruushku u taagan yahay marinada ganacsiga ee cusub ee dunida. Wax walba way kala cadaan doonaan. Markaasi dhidibka udub-dhexaadka dunida kuma hoos jiro gacanta reer galbeedka. Turkiga ayaa ku sugan xaalad la mid ah markii ugu horeysay qarniyo. Xakameynta marinada ganacsiga caalamiga ah ayaa ka wareegay reer galbeedka una wareegay dalal ay ka mid yihiin Shiinaha, Ruushka, Turkiga iyo Iiraan. Inta badan marinbadeedka waxay ku yaalaan gobolka Muslimiinta. Dhidibka ugu weynaa ee dhulka ayaa mar kale soo ifbaxaya, halka reer galbeedkana gees loo riixayo. Adduun cusub ayaa la dhisayaa, adduun ku fidsan Shiinaha ilaa waqooyiga iyo koonfurta Afrika iyo sidoo kale bartamaha iyo koonfur Aasiya. Marka laga reebo bariga dhexe, tani waxa ay burbur taariikhi ah u tahay Mareykanka iyo Yurub. Sidaasi darteed, waxay isku dayayaan inay ka hortagaan masiirkani in uu furmo. Waxay ahaayeen reer galbeedka Mareykanka iyo Britain kuwii bilaabay dagaalka Ukraine. Waxaa la qorsheynayaa Ruushka in lagu qaado dagaal ka dhaca meel kale iyo sidoo kale in la burburiyo dalal kale. Marka qorshahan uu hirgalo, waxaa bilaabanaya xilligii la dhacay gobolka Ruushka iyo kheyraadkiisa. Kadib Ruushkana, Turkiga waa bartilmaameedka ku xiga ee reer galbeedka. Mowqifka hadda ee Mareykanka iyo Yurub ayaa si buuxda u muujinaya khataraha ku dhici doona Turkiga. Turkiga wuxuu ku sugan yahay bartanka qariiradaha korontada ee cusub. Ma ahan oo keliya dalka ugu muhiimsan ee bariga dhexe, laakiin sidoo kale waxay xoojinaysaa awoodda si heer sare ah. Waxa soo kordhaya mowjado cusub oo cajiib ah oo ka imaanaya bartamaha sida ilaa bariga dhexe iyo Afrika, taas oo ka soo horjeeda danaha reer galbeedka iyo gumaysigooda. Arrinta qalalaasaha ka qarxay Ukraine waxaa laga dareemi doonaa meel kasta, laga bilaabo Yurubta bari ilaa badda Mediterranean-ka, laga bilaabo Iran ilaa bariga dhexe, bartamaha Aasiya ilaa koonfurta Aasiya. Mediterranean-ka iyo Black Sea waxay noqon doontaa marxaladaha dagaalka quwadaha dunida ugu xun ee Turkiga uu wajihi doono. Mareykanka iyo Yurub waxay leeyihiin laba ulajeed oo ah in la joojiyo Ruushka si loo joojiyo korontada ka imaanaysa bariga Yurub, si loo mideeyo Mareykanka iyo Yurub, si aan Yurub loo kala qaybin, si loo ilaaliyo nidaamka reer galbeedka, in la burburiyo nidaamka cusub ee dunida, kaas oo ka curtay Shiinaha soona gaaray xuduudaha Yurub, kaas oo awood cusub ka dhistay xuduntii hore ee dunida, taas oo adeegsanaysa saameynta Turkiga iyo Ruushka ee gobolka oo reer galbeedka dhinac u riixayaan.
ruushku ma isdhiibi doonaa? Maraykanka iyo Yurub ma ka guuleysan doonaa? Yurub sidaas awood ma u yeelan doontaa in cabsideeda ay dejiso? Qoraaga waxa uu leeyahay reer galbeedku waxa ay bilaabeen howlgallo go'doomin ah oo ka dhan Ruushka dhinac kasta, laga bilaabo nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ah ilaa marinada gaadiidka, laga bilaabo isticmaalka raaxada ilaa tamarta, cuntada, ganacsiga ilaa warbaahinta, dhaqanka ilaa farshaxanka. Ruushka ayaa laga saaray dhammaan nidaamka reer galbeedka. Dhammaan shirkadaha reer galbeedka ayaa ka tagay howlihii dalkaasi ay ka hayeen. Dhammaan maalgelintiina waa la joojiyey. Wasaaradihii waa la xiray. Dareen celinta duulaanka Ruushka ee Maraykanka iyo Yurub ayaa ka gudbay duulaanka dal kaliya, waxaana la qorsheeyay in la diyaariyo dayrinta Ruushka ka hor iyo kadib duulaanka Ruushka. Maraykanka, Britain iyo Yurub weligood ma lahayn Ukraine oo kaliya waxay horinayaan dagaalka. Waxay ka caraysiiyeen Ukraine, waxay ka caraysiiyeen Ruushka. Dabadeed, toddobaad kadib markii uu duulaanka bilowday, waxay ka sii caraysiiyeen dunida oo dhan. Reer galbeedka ma adeegsan doonaan tillaabooyin militari oo ka dhana Ruushka. Dunidu waxay ku jirtaa xaalad sidaas oo kale ah oo difaaca Ukraine isu bedelay difaacidda qorshaha mustaqbalka ee Maraykanka. Dad iyo dalal badan ayaa arrintan ka walaacsan. Maskaxda guud ahaan ee caalamka ayaa lagu haystaa iyadoo loo marayo kala saarista xogta. Xulashada ciidanka ka sokow wax kasta oo dal lagu qabsan karo waa la sameeyey. Go'aan walba waa la qaatay. Hadda waxaan sugaynaa natiijada. Ibraahim Karaguul waxa uu leeyahay, haddaba maxaa dhacaya haddii go'doominta culus aanay natiijo wax ku ool ah soo saarin? Maxay noqon doontaa tallaabada xigta? In la xiro badaha dunida ee Ruushka, in la quusiyo maraakiibta ganacsiga ee Ruushka, si aad u garaacdo dhuumaha Ruushka, si loo xukumo kuwa Raashiya ka taga, si loo dilo muwaadiniinta Ruushka ee Maraykanka iyo Yurub, si loo go'doomiyo si la mid ah wadamada sii wada inay xiriir diblomaasiyadeed oo rasmi ah la yeeshaan Ruushka. Dunidu way ka tagi doontaa nidaamka reer galbeedka, laakiin dunida hadda kuma hoos jirto madax bannaanida buuxda ee reer galbeedka. Reer galbeedka inta badan ayay lumiyeen awooddaasi. Run ahaantii weli waxay gacanta ku hayaan nidaamyada iyo sidoo kale hay-adaha haray ee nidaamkii hore. Waddan kastaasoo uma malaynayo in loola dhaqmo si la mid ah haddii ay dhibaato kale kala kulmaan reer galbeedka mustaqbalka. Ma jiro waddan aan ahayn Maraykanka, Yurub iyo dhowr waddan oo la gumaysto oo ay u badan tahay inay isku dhiibaan xaaladdan waalida ah. Waxay markii horeba u muuqdeen inay qaateen damac kale oo ku saabsan arrimaha sida maaliyadda, kheyraadka, suuqyada, sarifka lacagaha qalaad. Maraykanka iyo boqortooyada Ingiriiska waxay isku dayi doonaan inay Turkiga ku soo jiidaan dagaal. Intaa waxaa dheer, Maraykanka iyo Yurub waxay sameyn doonaan sidii ay sameeyeen Ruushka. Sidoo kale Turkiga waxaa la adeegsan doonaa shacab iyo mucaarad Turki ah si ay Turkiga u geliyaan dagaal weyn, iyada oo aan loo eegin tallaabada xigta ee duulaanka Ukraine. Maraykanka iyo Yurub waxay qarxin doonaan dagaal cusub. Waxay furi doonaan weji cusub oo Ruushka ah. Maraykanka iyo Yurub waxay qaadayaan weerar rogaal celin ah oo ay kaga hortagayaan in reer galbeedka faraha ka qaadaan nidaamka cusub ee dunida. Laakiin weerarkan waxaa loo sii marayaa wadamo dhinaca saddexaad ah. Dagaalkani waxaa lagu sii wadaa iyadoo loo marayo loolan quwadaha adduunka ah, kheyraadka suuqyada, hay-adaha caalamiga ah iyo nidaamka maaliyadeed. Isku day in maskaxdaada aad ku shubto Bariga Dhexe. Wadooyinka ganacsiga, kheyraadka iyo horumarinada gaadiidka ayaa ah bartilmaameedyada ugu weyn waddan kasta oo wadadiisa ka gudubto. Kuwani waxaa suurtagal ah in lagu dagaalamo. Turkiga ayaa udub dhexaad u ah marinkaasi oo dhan. Reer galbeedku hadda waxa ay wadaan dagaaladii ay markii hore ku qaadi jireen ururo argagixiso iyagoo u sii maraya dal saddexaad. Isku dhacyada tooska ah ayaa laga yaabaa inay raacaan dagaalka Ukraine, taas oo micnaheedu yahay burburinta dunida. Reer galbeedku waxay isku dayayaan inay awoodooda isugu geeyaan inaanu farahooda ka bixin nidaamka caalamiga ah. Maskaxda iyo himilada reer galbeedka kama waantoobaan in dunida oo dhan ay u rogaan goob dagaal si looga hortago arrintani. Tani waxa ay ka gudubtay duulaanka Ukraine. Dal kasta waxa uu u baahan yahay in uu feejignaado. Dabin ayaa loo dhigayaa Turkiga. Wuu og yahay marka xigta ee la beegsan doono. Sidaas darteed, haddii ay iska ilaaliso inay siiso nidaamka reer galbeedka mar kale fursadahani oo aysan diidin inay noqoto qalabka difaaca ee Yurub, dabin weyn ayaa loo dhigayaa. Turkiga waa inuu taa uga gudbaa isaga oo ka faa'iideysanaya maskaxdiisa iyo khibraddiisa reer galbeedka, ayuu qoraalka ku soo gabagabeeyay Ibraahim Karaguul.